bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dadkana dhegeysanaya ku soo dhowaada warka subaxnimo ee redio muqdisho qodobada wararkeena ugu waaweynna waxaa ka mid ah xogeeyaha guud ee qaramada midoobe oo aqbalay go-aankii dowladda soomaaliya ka qaatay ergegii dowladda soomaaliya u joogay qaramada midoobay iyadoo xogeeyaha guud uu sheegay inuu soo magacaabi doono ergey cusub dowladda soomaaliya oo dadaal badan ku bixinaysa sidii loo dhammayn lahaa colaad beeleedyada ka jira deegaano ka tirsan gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya saraakiisha ciidanka jubbaland oo faahfaahin ka bixiya howlgallo lagu laayay maleeshiyaad ka tirsan argagixisada al-shabaab oo ka dhacay degmada jamaame wasaaradda beeraha ee xukuumadda soomaaliya oo khubaro dhanka beeraha u dirtay deegaano ka tirsan gobolka bakool si ay u soo qiimeeyaan dalagyada beeraha ee gobolkaasi bakool sidoo kale wararkeena aad ku maqli doontaan xiriirka cusub u magacaabay hooyada dhashay ciyaaryahanka Paul Pogba. waxaan u baahannahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo howlgalo guuldarraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan mar kale subax wanaagsan khiyaarta wada naga dhegeysataa idilkiinba meel waliba aad joogtaan ku soo dhowaada warkiyo fidsan xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa aqbalay go-aankii ka soo baxay dowladda soomaaliya waxaana xogeeyuhu oo qaatay go-aan ah inuu soo magacaabo ergey cusub oo kale oo bedelaya ergeyga haatan soomaaliya jooga warka waxaa inoo faahfaahinaya waryahayga cali axmed sheekh war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa lagu sheegay in xogeyaha guud uu aqbalay go-aankii dowladda federaalka ee ka qaadatay wakiilkii gaarka ahaa ee xogeyaha guud qaramada midoobey u qaabilsanaa arrimaha soomaaliya nicholas haysam kaasoo ahaa inaan dalkan laga rabin kana sii shaqayn karin bersana nan garanta wuxuuna xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres uu sheegay inuu soo magacaabayo wakiil cusub oo qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya xogayaha guud waxa uu sheegay inuu kalsooni buuxda ku qabay Mr. Haysam islamarkaana uu ahaa shaqsi khibrad leh lana ixtiraamo sidoo kalena door hogaamineed oo aad muhiim ah leh sidoo kale waxa uu sheegay in go-aanka dowladda ee beersanan garanta aanay qaban xubnaha qaramada midoobay loona isticmaali karin shaqaalaha UN-ka sida uu qabo heshiiska diblomaasiyadeed ee Vienna ee ahaa 1961 balse arrintaas ay tahay mid loo adeegsado wadamada sidoo kalena aanay qaramada midoobey ahayn dal waxa uu xusay in dadka iyo mas-uuliyiinta qaramada midoobey aanay u baahnayn aqoonsi kuna horan oo keliya ah xogeyaha guud ee qaramada midoobey xogeyaha guud ee qaramada midoobey Antonio Guterres ayaa xaqiijiyay in shacabka Soomaaliyeed kaalmaha hore kaga jiraan dadka amase dalalka baahiyaha weyn u qaba taageerida qaramada midoobey waxaana qaramada midoobey shaacisay inay sii wadi doonto kaalmadeeda ku haboon taageerida Soomaaliya. waa mahadsantahay cali dowladda Soomaaliya ayaa dadaal badan ugu jirta sidii loo dhammayn lahaa colaadaha galgaduud ee bartamaha Soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya oo haatan ku sugan deegaano ka tirsan gobolka galgaduud gaar ahaan degmada Cabudwaaq ayaa waxa uu sheegay in laga maarmaan ay tahay in xal laga gaaro colaad beeleedyada muddada dheer soo socday walaalayaal ugaasyo iyo salaadiin iyo nabadoonno iyo culumo iyo kulli sidii dhaqanku ahaan jiray markii ay ku timaado dhibaato colaadeed dadkaas hadda aan tiriyey ayaa ugu horeeya inta loo hoos galo nabadda raadinteeda markay dhaqan tahay dowladuna kaalinteeday leedahay intayada xamar idinkaga timid waxaan qaadanaynaa wixii dhinac dowladeed jira oo ku aadan nabadda kaalintaa inay buuxiyaan walaalayaalow waa la iswacdiyey waa la isbaraarujiyey khiyaartu kulligood intii hadashay oo dhani muhiimadda nabaddu leedahay iyo dhibaatada colaaddu leedahay laga hadlo aad iyo aad aad u mahadsantihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa dhib waa dhacaye taladii iyo caqligii iyo dadaalkii looga soo noqon lahaa oo lagu dhayi lahaa inaan helno markana jubbooyinka
saraakiisha ciidanka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo lagu laayay maleeshiyaad ka tirsan argixisada al-shabaab oo ka dhacay degmada jamaame. aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa warkan ka soo diray Kismaayo. saraakiishani ka tirsan ciidanka daraawiishta ee dowlad goboleedka Jubbaland ee ku sugan nawaaxiga deegaanka Baarsan Guuni ee ka tirsan degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen howlgallo maalmihii u dambeysay ay ka wadeen deegaanada ku dhow degmada Jamaame gaar ahaan deegaanada Sanguuni Araro oo markaa dhanka webiga ka xiga degmada Jamaame waxaana howlgalladaasi nabadiidka iyadoona maalmihii u dambeysay ciidamada daraawiishta iyo kuwa xooga dalku ay ku sii qulqulayeen deegaanada ku dhow degmada xagan ilaa dhinacan iyo yaanta mayoonta aagaas oo dhan ka howlgalaan si fiican bayna howlgalladu socdaan xagan gadigan webiga waan talownay Reenerow meesha la dhaho Jibey aaga waan gaadhnaa oo marmar webigan talown ugu jira marka 100% howlgalladu si fiican buu socdaan cadowguna aad buu macni hadda saacada meeshan taagan waa Sanguuni ma aha Baarsan Guuni waa Sanguuni baan joognaa afkana horena waa Araro macnaheedu ciidanku maalinkii harsadaa marka cadowgu waan fogeynaa 100% marka ciidamada howlgalkooda si fiican buu socdaa 100% taa hadda wax macnaheedu wax la wada arkay awoodda nabadiidku hoos buu 100% u dhacay wax hadda wadan waa qarax iyo ismiidaamin iyo wax noocaas ah taana macnaheedu waan la baranay kaartadoodii iyo dhaqankoodii waan fahnay hadda macnaheedu awood la hor istaagto oo jirta ma jirto socdaalkuna ugu socdo howlgal guud baa socdo macnaheedu kaas hadda aan ku sii bacsanay cadowga hadda xogaha noogu dambeeyay cadow ka sokeeyay jilib maba jiraba dawladda Jubbaland macnaheedu way u diyaar garooday waana soconaa hadii la yiraahdo marka aad baa awoodda hoos ugu dhacay markaas taa macnaheedu cadayn ku ah adigu maanta wariyihii aadan Kismaayo kaliya baa soo maray wax istafad kaliya baa soo maray waa timid meeshan marka taas cadaynaba ku sugtan amniga marka inta la eeg waxaan ku sugnaa awood iyo dawladnimo iyo macnaheedu shaqada aan qabanayno aanu habeen soo jeedno inkastoo howlgalladu weli ay sii xoogaysanayaan haddana waxaa jira xaalado bini'aadanimo oo ka jira deegaanadaasi ay howlgallada ka soconayaan iyadoona Jubbaland shalay ay dib guryahooda ugu celisay kuman baxiga degmada Jamaame deegaanada Sanguuni iyo Baarka halkaas oo dadkii lagu celiyay ay intooda badan sheegeen in dhibaatooyin dhinaca nolosha ay haysato sida uu sheegay gudoomiyaha deegaankaasi oo aan shalay halka kula kulmay dadka horta waa wali ma soo gaarin hay'adihii iyo dawladda inta badan ma soo gaarin waxay joogaan halkan waxay ku falanayaan xoogoodii baalkooda baahi badan baa haysa dadkan guriyihii biyaha ka burburiyay raashin iyo waxa quduruudi ma haystaan quduruudi wax badan midna ma haystaan waxa iyadoo hadda caawiyana ma jirto dawladda kale oo caawiyana ma jiraan biyaha waxay ku nool yihiin ciidankan Jubbaland biyahooda iyo ku nool yihiin dhinaca nolosha waxaana haatan marka dadkaasi soo food saaray dhibaatooyin kala duwan oo caafimaad biyo la'aan iyo sidoo kale adeegyada kala duwan ee aasaasiga ah ay u baahnaayeen aanu helin marka laga reebo gurmadyo aan sida u sii badneen oo ay Jubbaland iyo hay'adaha samafalka qaarkood ay halkan soo gaarsiiyeen wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug ayaa waxay sheegayaan in deegaano ka tirsan degmada Hobyo haatan ay ka jirto xaalad biyo la'aaneed iyadoo uu jabay hal ceel oo halkaasi ku yaalay biyo la'aanta ayaa waxay saameysay dadkii dunyada deegaanada hoostiga degmada Hobyo ee gobolka Mudug wariyahayga Baashi Cali Xaashi ayaa haatan qadka telefoonka si jir asagoo ku sugan degmada Hobyo Baashi waa maamulka Maxamed Kaafi sida sheegtay saddex maalin ka hor waxaa jabay ceelkii magaalada xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug ee biyaha ka heli jirtay ceelkaas oo marka hore magaalada u jiray wax ka badan 45 kilomitir oo dhinaca qoraac dhaca uga aadan biyaha u keeni jiray biyo la'aanta magaalada xeebeedka Hobyo saakay ka taagan waa mid guud ahaan saameysay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee magaalada xeebeedka ku nool iyo sidoo kale deegaanada kale oo Hobyo hoos yimaada oo marka hore ceelkan dadka reer guuraaga ay ku tiirsanayeen ceelkan wuxuu ku yaalaa deegaan Gawaan Liyaabo oo 45 kilomitir dhinaca galbeed 35 kilomitir dhinaca galbeed uga beegan magaalada xeebeedka Hobyo gobolka Mudug maamulka iyo sidoo kale waxa garadka magaalada xeebeedka Hobyo waxay ka qeyradaan ka muujiyeen dowlad goboleedka Galmudug iyo hay'adaha samafalka oo ku howlan ama ku lug tale dayactirka ceelasha waxay u direen baaq ku aadan in ceelkan laga hawlgalo oo dib biyo loo keeno
inkastoo la filayo maantay halkaas ay gaaraan dabcan injineere ceelka biyaha dee magaala xeebeedka Hobyo 2 habeen iyo 2 maalmood waxay ku hoyanaysaa dabcan biyaha badda laga helo laakiin uma suurtagelin in biyaha ceelka ka imaan jiray magaala xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug ay gaaraan. waa mahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa waryahayga baashi cali xaashe oo ku sugan degmada Hobyo oo khadka telefoonka inoogu warramayay. wasaaradda beeraha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa khubaro dhanka beeraha ah waxay u dirtay gobolka Bakool si ay u soo qiimeeyaan badqabka dalagyada beeraha ee gobolkaasi Bakool. waryahayga Maxamed Xasan Cabdiraxmaan oo Bakool jooga ayaa warkan inoo soo diray. inkastoo hoos u dhac wax soo saarka dalagyada beeraha loo aaneeyo abaaro ku soo laalaabta ayaa iminka la ogaaday sababo kale. xuseen muuse maliisha waa agaasimaha wax soo saarka wasaaradda beeraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya wuxuu ka warbixinayaa waxyeelada cayayaanka uu u geysto dalagyada kala gedisan. waxaan ogaanay markaan inuu baashaas wadanka ka jiro oo meel kas ka jiro oo gaar ahaan oo beerti oo kas uu cunaay geeleyda kaliya maahine inuu cunaay wax Allah waxii badan oo aan cunaay waxaan ku aragnay oo misingide nyaanyadii lemon meel kasi meel wax lagu tacbado waxaan ku aragnay markaan inay baashaas macna ku dhax jiro. beeralayda ayaa xilli roobaadka marka roob u da'o waxa ay muujiyaan rajo wanaagsan hase yeeshee xilliga ay u diyaar garoobayaan goosashada dalagyadii ay beerteen waxaa saameeya cudurro iyo cayayaano la soo dersa taas oo ka niyad jebisa tacbashada beeraha. Cabdixamiid Salaad Xasan oo ah khabiir ku takhasusay la dagaalanka cayayaanada beeraha kana mid ah xubnaha ka socda wasaaradda beeraha ee Soomaaliya ayaa sheegaya sida loo yareyn karo waxyeelada cayayaankani. waxaan sahankeeda ku jirnay cayayaanka la yiraahdo fall armworm, American fall armworm oo beeralayda Soomaaliyeed ama guud ahaan Soomaalida ay u bixisay madaxan gooley. cayayaankan u jeedaan oo gacanta ku hayo waxaan kula kulannay beer ku taalo ama aan ku aragnay beer ku taalo degmadan Xudur. waa cayayaankii soo galay sanad ka hor Soomaaliya Afrikana soo galay 2016 aadna u saameeyo beeraha. saameyntiisa u naqaano waxa waayo hal xabo oo larva ah ama diirtadan hal xabo kamid ah hal geed hadii ay cunto inay baabi'inayso ama laba kamid ah inay tirtirayaan. marka waxaan shakinay uga jirin cayayaankan in gobolka Bakool uu soo gaaray oo beeraha uu saameeyay gaar ahaan dalagyada galeyda iyo misigada. Mukhtaar Fuuje waa isuduwaha wasaaradda beeraha ee degmada Xudur wuxuu sharaxayaa baahiyaha gaarka ay qabaan beeralayda. walaanka xoorta cayayaanka waay may kale aan helaan kaalmadii oo iyo fadaayaan oo dhinaca beera ku hela jiraan heega dawliga heega hay'adaha ku hela jiraan mahaysadaan beeralayda tababar la siiyay seminaar la furay walta baran oo la fiiday qalab la siiyay qalabka la siiyay daawo la siiyay walwalba ku taakulayay walaayahay malahay wasaaradda beeraha ku fadaan in tababaradii qalabkii walwalba walay oo leenka baahanay wasaaradda beeraha loo ka baahanay ama la ka baranay in iyo suubida la ka baraday iyo hadda kor la suubiyo jiri oo adeegi bulshada beeralayda leenka qobaday in wasaaradda beeraha ku helna taasoo wasaaradda beeraha ku fadaanaya ku codsadaan. gobolka Bakool oo inta badan dhaqaalihiisu uu ku tiirsan yahay wax soo saarka dalagyada beeraha oo dhowr sano la soo dhaafay ay ku soo laalaabatay abaaro iyo cudurro saameeyay dalagyada beeraha si lagu beero. dad badan oo noloshoodu ku tiirsanay tacbashada beeraha ayaa haatan barakac ku ah xerooyinka ku yaala duleedka magaalada Xudur muddo ka badan 3 sano waxayna la daalaa-dhacayaan habka ay u maareyn lahaayeen noloshooda. waxay dalbanayaan in dib u dejin loo sameeyo si ay dib ugu noqdaan tacbashada beerahooda. Maxamed Xasan Cabdiraxmaan, raadiyaha telefishanka qaranka, magaalada Xudur. tartan ciyaareed lagu taageerayo waxqabadka mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu soo gabagabeeyay degmada Karaan ee isla gobolka Banaadir. waryahayga Aamine Xaaji Maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. tartanka ciyaaraha kubadda cagta oo maanta lagu qabtay degmada Karaan ee gobolka Banaadir ayaa lagu taageerayay dadaalada maamulka gobolka Banaadir oo ugu jiro horumarinta adeegyada bulshada iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale. gudoomiyaasha dhalinyarada iyo haweenka degmada Karaan ayaa sheegeen in ka dhalinyaro ahaan ay si weyn u taageersan yihiin waxqabadka maamulka gobolka Banaadir. waxaa la dhigay koob
oo lagu taageerayo waxqabadkeeda wanaagsan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada basmo waxaana koobkaas ka qayb galaya 24 kooxood waxaan leenahay gudoomiye ku soo dhawow waxqabadkaaga lama soo koobi karo koob lagu taageerayo waxqabadka gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir basma caamir shakiiti oo ka qayb galayaan 24 kooxood oo ka yimideen degmada kaaraan iyo cabdicasiis iyo shibis maanta meeshaan waxaa isku nimid waxaa ka socda kubadda cagta oo lagu taageerayo gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir basma waxqabadkeeda lagu taageerayaa marka waxaan leenahay waxqabadka ay leeyihiin macnaha haweenka Jawahir Barqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir ayaa bogaadisay doorka dhalinyarada ee kaga aadan isdhexgalka bulshada waxaa sharaf weyn noo ah in ay ummadda Soomaaliyeed maanta ay gaareen in ayagu ay shakhsiga wax qabanaya ay is abaal mariyaan in gudoomiye basmo 24 kooxood oo runtii aan ahayn kuwa ayaga la soo abaabulay inta is abaabulaan qabiil aan ku imaanin ayagoo dareenka iyo shaqada ay qabanayso ku cabiray dareenkooda inay ku abaal mariyaan waxaana wanaagsan qofka intuu nool yahay in la abaal mariyo maamulka gobolka Banaadir oo runtii aan uga mahad celinayno gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho runtii doorka iyo inuu maaragtay basma ay noqoto arrimaha bulshada waa wax anaga dhan noo wada wanaagsan waayo waa dareemi kartaan dhalinyaradii ka timid gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Kaaraan iyo maaragtay iyo hareeraheedaba inay u dhigaan koob gudoomiyahooda ayagoo ku abaal marinayo waxqabadkeeda oo leh maaragtay ayadoo nool waa mahadsantahay koobkan ugu dambeyntiina xiriirka kubadda cagta ee dalka Ghana ayaa hooyada dhashay laacibka u dheelaa kooxda Manchester United qadka dhexana ka ciyaara ee Paul Pogba la yiraahdo u magacaabay safiirka kooxda kubadda cagta ee haweenka ee dalkaasi Ghana magacaabis ayaa waxay ka dambeysay kadib markii kulan ay wada qaateen haweeneydan iyo sidoo kale madaxweynaha wadanka Ghana gaar ahaan ciyaaraha kubadda cagta madaxweynaha wadanka Ghana ayaa haatan wuxuu rajeynayaa in ciyaaryahan Paul Pogba iyo waliba sidoo kale mataanayaasha la dhashay ciyaaryahankaas ee ciyaartooyda ah ee ka ciyaara qaaradda Yurub ay xilka loo magacaabay hooyadood ay ka caawiyaan shaqada culus ee qabanayso Moriba oo sidoo kale ah hooyada dhashay Paul Pogba ayaa hore waxay uga mid ahayd kooxda haweenka ee u ciyaara dalkaasi Ghana waxaana haatan aad loogu rajawan yahay in ay ka qayb qaadato horumarinta iyo waliba guulo waaweyn oo ay soo hooyaan ciyaartooyda dalka Ghana warka waa dhegeystayaal aad kala socoteen warka subaxnimo ee Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa naga intaa